بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناكسن داوديل waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha oo xiidan kale aad kaga barateen inaad ka daawataan Raj Sports TV oo maalinimo salaasa taariikhdan waxay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناكسن داوديل waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha oo xiidan kale aad kaga barateen inaad ka daawataan Raj Sports TV waa maalinimo isniina taariikhdan waxay ku aasaysan tahay 7 bisha 6 ee June sanada 2021 qodobada barnaamijka aad kaga bogan doontaan muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal waxa ku jiri doona madaxa fulinta ee Paris Saint-Germain oo deeriyay kooxaha daneynaya adeega 22 sano jirka reer Faranse ee Kylian Mbappé Dortmund oo shaaciyeen qiimaha lagu heli karo Irina Halana qodobada sidoo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxa ku jiri doona Aston Villa oo ciyaaryahankii labaad doonaya inay todobaad gudihiisa ay soo gabagabeeyaan iyagoo bartilmaameedsanaya kabtanka Southampton qodobada sidoo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxa ku jiri doona Arsenal oo ku laabteen xiisaha ciyaaryahan ka tirsan Real Madrid qodobada sidoo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal idinku maanta isniinana waxaa kamid Barcelona ayaa u muuqata kuwa iskaga jabaya ciyaaryahan ay ku raad joogeen qodobada sidoo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya Bola Grana oo bartilmaameedsanaya difaaca dhawaan loogu yeeray xulka La Roja ee Spain qodobada sidoo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona weeryahanka reer Faransa ee Olivier Giroud waxaa suurtagal laga dhigayaa inuu aadi karo Realka dalka Talyaaniga ee Serie A qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan sidoo kale waxaa kamid noqonaya Juventus oo ciyaaryahan la xiriirinaya Bola Grana ku biireen raacdada ciyaaryahankaasi loogu jiro qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal idinku waxaa kamid tababaraha Atletico Madrid ninka reer Argentina Diego Pablo Simeone waxa uu ku dhow yahay qandaraas dheeraad oo siiyo naadiga Wanda Metropolitano ku ciyaaray Atletico qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal sidoo kale aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona Real Betis waxay bartilmaameedsanayaan ciyaaryahan reer Paraguay ka oo ka tirsan West Ham qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona Tottenham waxa ay qarka u saaran yihiin dhameystiraan agaasimihii hore ee Juventus Fabio oo noqonaya directorka dhanka suuqa ee Tottenham Lazio waxa ay ku dhow yihiin in shaqada tababarnimo oo baneeyay Simone Inzaghi ee uu magacaabaan tababarihii hore Juventus iyo Chelsea Maurizio Sarri qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan daawadayaal barnaamijka muuqaalka ciyaaraha anigoo Xasan Cabdullaahi ayaa barnaamijka idiin soo saar halkan idinkala socodsiinaya waana mar kale barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Raj Sports TV intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ee Raj Sports TV maanta isniina haddii aan ku bilaabana qodobadii aad daawateen saaxiibayaal madaxa fulinta ee Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ayaa lagu soo waramayaa inuu u sheegay kooxaha daneynaya adeega Kylian Mbappé inuusan ciyaaryahankaasi ee PSG marna aysan iibin doonin kuma fikirin inaan iibino mid kamid xidigeena ayuu yiri madaxa fulinta ee Paris Saint-Germain Al-Khelaifi ciyaaryahankan ayaa bartilmaameed kooxaha u tunkuween horyaalka dalka Spain Bola Grana iyo naadiga Real Madrid sidoo kalena kooxaha dalka Ingiriiska Liverpool ayaa kamid kooxaha daneynaya adeega 22 sano jirka reer Faransa ee Kylian Mbappé majalada AS Spain laga leeyahay waxay ku waramaysaa oo soo xiganaysa laakiin Faransiiska laga leeyahay madaxa fulinta Paris Saint-Germain Al-Khelaifi ayaa u sheegay in maamulka PSG marna aysan go'aansan iibinta Kylian Mbappé
waa mid ka mid ah xidigaha PSG loogu jecel yahay, waxaana sheegay inaysan doonaynin inay kooxdooda ay ka fasaxaan ciyaaryahan Kylian Mbappe oo kale. dhinaca kalena Dortmund ayaa sheegay in qiimaha lagu heli karo da'yarka reer Norway ee Erling Haaland kadib kooxaha ugu tunkuween qaaradda Yurub oo saf dheer u galay helitaanka adeega ciyaaryahanka dhalinyarada ee reer Norway ee Dortmund Erling Haaland. Dortmund ama BVB ayaa shaaciyeen lacagaha lagu heli karo. majalada Bild ee Germany laga leeyahay waxay ku waramaysaa in adiga la yiraahdo Dortmund ama BVB ay adduun lacageed gaaray 200 milyan oo lacagta euro ay dul dhigeen ninka reer Norway ee Erling Haaland. Real Madrid, Bayern Munich iyo PSG, Manchester City, Chelsea ayaa dhammaantood bartilmaameedsanaya Haaland oo 20 sano jir oo bandhiga sare ku qaatay ciyaareedkii soo idlaaday horyaalka dalka Germany ee Bundesliga. geesta kalena Aston Villa ayaa dalaba ka gudbiyeen kabtanka Southampton ee James Ward-Prowse 26 sano jirkaan calaamada xushmada ee kabtanimada santiisa u qaatay ee Southampton ayay dalbadeen kadib markii ay dhawaan la soo sicdeen lacag rikoorana Villa Park naadiga ka dhisan ee Aston Villa ee ku soo qaateen kubadda abuuraha Norway iyo Argentina Emiliano. waxaana haatan lagu soo waramayaa in 26 sano jirka Southampton ee James Ward-Prowse ee xiiseynayaan. isla Southampton oo ciyaaryahanka ka tirsan yahay ee durbadiiba ka jawaabeen dalabkii ugu horeeyay oo kaga yimid Villa Park naadiga ku ciyaartay Aston Villa. Southampton ayaa dalabkii ugu horeeyay Villa Park ka yimid ku celiyeen Villa, waxaana loo sheegay in kabtanka santiisa AS Mari naadiga ku ciyaara marnaba uusan iibeen. 35 milyan oo lacagta euro ay kula soo dhaqaaqeen Emiliano, waxaana Villa Park naadiga ka dhisan Villa ee daneynayaan ciyaaryahanka Southampton kabtanka ee James Ward-Prowse, waxaana la durbadiiba dalabkooda ugu horeeyay la soo diiday sida majalada Mirror ee England laga leeyahay ku warantay. dhanka kalena Arsenal ayaa dalaba u direen Real Madrid oo ay ku doonayaan Martin Odegaard. Arsenal ayaa ku guul dareysteen bedelka ciyaaryahan Martin Odegaard oo Mikel Arteta si weyn u daneynayay. ciyaaryahanka Villa caga dhigtay ee 24 sano jirka reer Argentina oo Norway ka soo dhaqaaqay Emiliano, waxaana haatan lagu soo waramayaa in 22 sano jirka dib ugu laabtay Santiago ee reer Norway ee Martin Odegaard ee Arsenal wax ka weydiiyeen Real Madrid suurtagalaasha. Los Blancos ayaa dalbanaya adduun lacageed gaaray 62 milyan oo ay sheegeen inay kaga sabri karaan adeega Martin Odegaard oo reer Norway. dhinaca kalena isla mooraha Arsenal ayaan ku guda jirnay Gunners ayaa waxa ay ku biireen raacdada loogu jiro ciyaaryahanka kubadda sameeya ee qaranka Portugal ninka la yiraahdo Robin Navas, idoo ciyaaryahankan si weyn loola xiriirinayo Manchester United. Wolves ciyaaryahanka qadka dhexe kaga ciyaaray ee Robin Navas oo 24 sano jir ayaa xiise ka helaya kooxaha ugu tunka weyn horyaalka dalka Ingiriiska, idoo Manchester United ciyaaryahanka si weyn ay u daneynayaan. waxaana haatan tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta kadib markii ay ku guul dareysteen Argentina kubad sameeyooda iyo Norway Emiliano, idoo Real Madrid xidigoodana 62 milyan ku qiimeeyaan lacagta euro ee Martin Odegaard Arsenal ay ka cagajiideen lacagaas ay bixiyaan. waxaana haatan lagu majalada Times ee England laga leeyahay ku waramaysaa in Arsenal ay u wacdeen Robin Navas oo qadka dhexe kaga ciyaara Wolves. kooxda Arsenal ayaa wada hadal la qaateen wakiilka ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Portugal iyo Wolves Robin Navas, sida majalada England laga leeyahay ee Sunday Times ay ku waramayso. waxaana Navas ee Southampton diyaar u yihiin inay iibiyaan. Mikel Arteta ayaa u arkaa Robin Navas oo bandhig sare xilli ciyaareedkii soo idlaaday ku qaatay Wolves inuu ku xoojiyo naadigiisa xilli ciyaareedka soo aadan. Sunday Times waxay ku waramaysaa in Arsenal haatan ee Wolves la fureen wada hadallo iyagoo la xiriiray wakiilka ciyaaryahanka, waxaana 34 milyan oo lacagta euro ay Gunners dalabkii ugu horeeyay ku tijaabinayaan Wolves 24 sano jirka reer Portugal ee kubadda sameeya. dhanka kalena xidiga Manchester City
ee reer Belgium ee Kevin De Bruyne ayaa loo magacaabay xidiga ugu fiican horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii soo idlaaday isaga oo ku guuleystay abaalmarinta BFA oo ay bixiyaan xiriirka xirfadlayaasha Premier League. Kevin De Bruyne ayaa ku guuleystay abaalmarinta kadib xilli ciyaareed cajiib ah oo la qaatay naadiga Manchester City isagoo ku hogaamiyay Premier League sidoo kalena naadiga wadaniyiinta Sky Blue ka caawiyay inay gaaraan markooda ugu horeysay taariikhda naadigaasi final koobka Real Europa ee UEFA Champions League. De Bruyne ayaa abaalmarinta ku garaacay xidigaha ay ka mid yihiin Ilkay Gundogan oo reer Germany oo Sky Blue ee ka wada tirsan yihiin iyo Bruno Fernandes ninka reer Portugal ee Manchester United qadka dhexe ee kubadda sameynta kaga ciyaara. Harry Kane weeryaanka Three Lions iyo Tottenham iyo Ruben Dias ciyaaryaanka daafaca dhexe kaga ciyaara Manchester City iyo daayarka reer England ee Philip Foden. Dhamaan xidigaasi ayuu ku garaacay ninka la yiraahdo Kevin De Bruyne abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan Premier League xilli ciyaareedkii soo idlaaday oo ay bixiyaan xiriirka xirfadlayaasha Premier League. Dhinaca kalena naadiga Tottenham ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqaan agaasimihii hore ee Juventus oo loo magacaabay shaqada agaasinka ee dhanka suuqa ee Tottenham ayaa doonayay inay la soo saxiixdaan agaasimihii hore Juventus iyo tababari Inter Milan iskaga dhaqaaqay ee Antonio Conte, laakiin wadahadaladii u dhaxeeyay Tottenham iyo Antonio Conte ayaa burburay. waxaana haatan majalada Calcio Mercato Italianiga laga leeyahay ku waramaysa in Fabio directorkii hore ee Juventus uu ku dhow yahay inuu agaasimaha ciyaaraha ee Tottenham uu noqdo. dhinaca kalena Juventus ayaa Bola Grana kula biireen raacdada loogu jiro Memphis Depay oo 27 sano jira Lyon ka tirsan. bartilmaameedka Bola Grana ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ee Ronald Koeman ay majalada Mundo Deportivo waxay ku waramaysaa in haatan Barcelona ee loolan kala kulmayaan Juventus oo dhankooda doonaya in Memphis Depay ay soo qaataan. ciyaaryahanka 27 sano jirka ayaa lagu heli karaa beeca xurta, waxaana Mundo Deportivo ku waramaysaa in haatan Bola Grana culeys ay ka wajahayaan Juventus ama Simeone Allegri. tababaraha dhawaangalka Juventus ayaana doonaya in ciyaaryahankaasi oo keeno Allianz Stadium ee magaalada Turin. dhinaca kalena tababaraha Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ayaa qarka u saaran in heshiisa 2 sano oo dheeri oo ku daro heshiiskiisa uu ku joogo Wanda Metropolitano. tababaraha reer Argentina ee Diego Pablo Simeone ayaa Atletico ku hogaamiyay xilli ciyaareedkani inay ku guuleystaan horyaalka dalka Spain ee La Liga iyagoo ku garaacay kooxaha horyaalkaasi ku xafiltama ee Bola Grana iyo Real Madrid. heshiiskiisa ayaa dhici doona 2024 waxaana tababaraha durbadiiba codsaday in Atletico maamulka Atletico ay la soo saxiixdaan ciyaaryahanka 23 sano jirka Inter Milan weerarka kaga ciyaaray ee Roberto Lautaro Martinez. ana Lautaro oo dalbaday Diego Simeone in loo keeno Wanda Metropolitano si loo naadiga Atletico xilli ciyaareedka soo aadan ugu xoojiyo. dhinaca kalena Real Betis ayaa wada hadalla waxa ay kula jiraan West Ham ama Hammers 29 sano jirka dhamaadka bishan oo qandaraaska oo kula jiro Hammers ama West Ham oo idlaanayo. daafaca reer Paraguay ee Fabio ayay doonayaan Real Betis inay la saxiixdaan. majalada Mundo Deportivo waxay ku waramaysaa in West Ham ee wada hadal horumar laga sameeyay kula jiraan Real Betis oo doonaya inay gacanta ay ku dhigaan ciyaaryahanka daafaca dhexe ka ciyaara ee reer Paraguay iyo West Ham ee Fabio. dhinaca kalena Barcelona ayaa u muuqata kuwa ka niyad jabay xiisaha ciyaaryahan Jorginho Wijnaldum. majalada Equipo Faransiiska laga leeyahay waxay ku waramaysaa in PSG oo qarka u saaran yahay Jorginho Wijnaldum in heshiis 3 sano oo la galo. mishaaraadka toddobaadlaha ay u ballan qaadeen Bola Grana mishaar 2 jibaarkiisa ay PSG iyo Nasser Al Khalifa ay u ballan qaadeen Jorginho Wijnaldum oo 30 sano jira. waxaana Equipo Faransiiska laga leeyahay ku waramaysaa in haatan PSG ee qarka u saaran yihiin in rajadii Ronald Koeman iyo Barcelona ee Jorginho Wijnaldum ay soo gabagabeeyaan.